waxaa si weyn u hana qaaday horumarka ganacsatada Soomaaliland ka sameeyeen ganacsiga kala duwan ee ka socda gobolada kala duwan ee dalka haddaba iyadoo si xawliya ganacsatada reer Soomaaliland qayb muuqata ka yihiin horumarka dalka ayaa barta ganacsiga Somali News TV ku soo qaadanayna shirkadda Moomi Group oo kamid ah shirkadaha waaweyn ee soo dejiya macaashada iyo bagaashka kala duwan Cabdinaasir Yuusuf Bulxan madaxa iibka ee shirkadda Moomi Group ayaa ka warbixiyay muhiimadda ganacsiga iyo qaybta muuqata ay ka jiraan horumarka iyo bilicda Somaliland waxa kale ay waraabisaa Somaliland kaliya kuma filna wadamada jaarka Djibouti waxba looga qaadaa maxaa la yiraahdaa Ethiopia xuduudda ugu badan ama suuqa ugu badan dunida maanta waxa lagu xisaabtamaya waxa weeyaan waa dad baa lagu xisaabtamaya population-ka ugu badan wax ka iibino ama customerska noo ah marka Somaliland laga tago oo mudanta ah waxa weeye Ethiopia oo kilka shanaad iyo kilka afraad ba itemska iyagana sharciyo u tagaan ilsiyana ay ku baxaan Cabdinaasir Yuusuf Bulxan madaxa suuqeynta shirkadda Moomi Group ma waxa idii gaar ama items idii gaar oo idinku shirkadina gaar u keenta ma jiraan walaal waxa weeye itemskan ku sheegay shirkadaydu waxay dabciyan ama dabeec ahaan kaga duwan tahay shirkadaha kale itemkanu damacno inaanu keeno shirkadda soo saarta waan xidhana imika banjuurkan cidna la keentaa ma jirto baastooyinkan cidna la keentaa ma jirto warshadan la xidhiidhno sideeda waan xidhanaa si aan tartan cid kale aanay noogu gelin taasna macnaha uu sameeynaa waxa weeyaan inaanu dadkayga aan u keeno wax tayo leh taran leh dhadhan leh raali gelinayo qofka dhinac kastood ka eegto marka loo eego marka dadka idigu xiran kayga Somaliland ama dalkan Somaliland goobo inta lag ama inta meelood ba shirkadinu ka furan waxa ka furan tahay shirkaddan Moomi Group ee hadda ka hawl gashaa Hargeysa oo xaruntii guud ee shirkadda ah waxa kale ay ka hawl gashaa Burco Berbera iyo Wajaale afarta branch baa imka Somaliland waafi uga furan insha Allah bidnilaahi kariim gobolada kalena sarfeygoodii iyo nidaamkoodii waxood waan dhameynay dhawaan waxaan rabnaa insha Allah bidnilaahi kariim inaanu gobol degmo iyo tuulaba dalka inkastoo imika ba gaarno alaabteedu gaarna hadana xarumaanu ku yeerno si dadku ay hawl fudeydin badan u helaan annaguna aan wax badan uga nasano adeeg hufan baan u sameeynaa oo raali gelin leh hubsasho leh maxaa la yiraahdaa marka delivery-ga faraha badan leen dadka u sameeyna lafteedu uu naga yaraanaya markaan soo sameeyno qofkii gobol wax ka soo codsada ama degmo ka soo codsada ama meel dheer ka soo codsada uma eegno qofkan maxaa idinka soo galay maxaad seegaysana waxaanu eegnaa ixtiraamku nagu leeyahay customer-kaygaas ama macmiilkaygaas ayaanu mar walba tixgelinta koobaad siinaa marka waxaanu ku leenahay inta aan ku sheegay walaal shirkadda Moomi Group customerskina waa maxay fariinta u diraysaa ama dadka idigu xiran fariintan u diraya waxa weeyaan horta carwadii koobaad carwadii dhaweyd ee Hargeysa ka dhacday waxa shirkadda noqotay shirkadaha ugu mudan Somaliland gaar ahaan xagga food staff-ka textile-ka waxyaabahaasna waxay noqotay number 1 marka waxaan leeyahay macmiilkiina laayo aan idin tilmaamo goobaha Moomi Group Hargeysa waxaad ka helaysaan sijeedka bari ee Calimataan ama soo jeedka albeerkada weyn ee Al-Jazeera la yiraahdo xanaanada dhexe eeriyadeeda Burco waxaad ka helaysaan iyadana maawil sijeedkiisa bari Wajaalana waxaad ka helaysaan iyadana xarunteeda guud si fiican baad u arki doontaan insha Allah bidnilaahi kariim waxaan fariintan u dirayaa ay tahay inay dadweynuhu soo dhawaadaan gacmo furan ay ku soo dhawaadaan discount la xaal ay ku soo dhawaadaan marka bisha Ramadaan la gaaro insha Allah bidnilaahi kariim iyo adeeg hufan oo raali geliyo qof kasta soo dhaweyn qiimo leh ayaa alaab tayo leh ayaan insha Allah bidnilaahi kariim fariintan u dirayaa waxa weeyaan soo dhaweyntaas qiimaha leh iyo waxa sheegay oo rumoobay insha Allah bidnilaahi kariim ayaan ka Ismaaciil Cabdi telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Hargeysa